warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya gaari nooca ambalaaska ah oo lagu qafaashay inta u dhaxayso ceelwaaq iyo lafey. warbixin ciidanka booliiska ay sheegeen ayaa tibaaxaysa in baabuurkan loo dhaadhiciyey dhanka xuduudda Soomaaliya. xubnaha afduubay baabuurkan oo aan la hubin ayaa looga shakisan yahay inay yihiin dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. 4 qof ayaa la xaqiijiyey in baabuurkan ay saarnaayeen oo lagu afduubay, waxaana lagu kala xusay in ay kala yihiin Mawlid Cabdi oo ahaa qof bukaan ah da'diisuna lagu sheegay 40 sano jir, Xasan Shaabaan oo ahaa darawalkii baabuurkan kaxeynayay, Cabdirashiid Bilow Xuseen iyo Aadan Dhaay oo labaduba ahaa shaqaale ka howlgalayay cisbitaalka Lafey. gaarigan ayaa shalay maalinimo la afduubay, waxaana laga afduubay agagaarka deegaanka Kukura oo ku taalla wadada xiriiriso Lafey iyo Ceelwaaq. wararka sheegaya in dhanka Soomaaliya baabuurkan loo kaxeeyey waxay intaas ku darayaan in la sii mariyay dhanka Komarqoota oo u dhowaante. xildhibaanka Lafey Maxamed Cabdi Khayr ayaa arrintan si kulul uga hadlay, isagoo sheegay inaysan ogolaan karin in xarakada Al-Shabaab ay deegaanka xukunto. laamaha amniga ayuu ugu baaqay inay dardargeliyaan soo celinta gaarigaasi iyo dabagalkiisaba.